xuska maalinta wax akhriska iyo qoraalka adduunka ayaa maanta si weyn waxa looga xusay magaalada Hargeysa iyadoo munaasabadaasina ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland xubno ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo waliba qaar ka mid ah ardayda iskuulada magaalada Hargeysa iyo ciidanka baanboyda ayaa waxa ay socod ku tageen goobta ay ka dhacaysay munaasabadaasi xuska maalinta wax akhriska iyo qoraalka munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland xubno ka socday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda waxbarashada ardayda iskuulada iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiiradii iyo waliba xubnihii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xuseeyay wax akhriska iyo qoraalka waxna qori karo waxna akhriyi kara ma aha himilo qaran oo kaliya ee waa waajib saaran ummadda saaran waa xaq uu qofku u leeyahay waa xaq u leeyahay qof waliba inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo inuu qofku waxna akhriyi karo waxna qori kara waa asaaska waxbarashada iyo dhismaha qofka imka waqtigan xaadirka ah hadaynu xagga budgetka oo kale aynu weecano dawladdu waxay gelisaa wasaaradda waxbarashada boqolkiiba ilaa 7 miisaaniyadda halka waxaanu u baahan ka ruqaansano ilaa boqolkiiba 15 ilaa boqolkiiba 20 miisaaniyadda inaynu meel u dhigno waxbarashadaas ay ku jirto maaha iskuulada caadiga oo kaliya dadka ma taqaana wuxuu soo lagu baray dadka waaweyn sidii waxna u qori lahaayeen waxna u akhriyi lahaayeen waayo mustaqbalku waa dadkeena waa caruurteena mustaqbalkeenu wuxuu qurux badan yahay ama uu wanaagsan yahay marba sida inuu maalgashano dadkeena maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay markuu fariinta rasmiga ah ee waxyigiisa qiimaha badan u soo deshiyay bini'aadmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala fariintiisa wuxuu ku soo bilaabay kelmadda iqra buu ku bilaabay subxaanahu wa tacaala nabigeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waa qofka keliya ee lagu ammaano akhris qoraal la'aan isagu ma ku ammaanan النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. أقول أنا وايفتين الآن أقومتنا واحد كبلا بنتا إن هذا وحنا آخرين كرتو وحنا قوري كرتو فهي أقومتو كبلا بنتا هذا أنا وحقرين كريم أقوم مهليس هذا أنا وحقرين كريم وحبرين كريم ميس أخرسكو وحوي وافرها أقومتا يور مركب حاجة عافمات كمركب كأجنو قف كان وحبا آخرين كريم حتى الدوّدة دكتور كو قرو اللي يراهو سلاو قاضو ما قرن كرو إلا وقف كلا ولا تبو آخر الله أنت وحي لا ذهي خدشلاد وين إن بدن بقى قف وين كوي مد أما قف يرى ولا يرى كوي أو كوي ورقدنا يا آخر بيلكستين نشوفنا مجتمعنا وحنكوانينا إن أي بلابان وحقرس حسك قرشها قرست إياه أخرست وحوي literacy and sustainable development oo ah in inaga inoo qorshaysan ama higsigeena qarno yahay in 2030 aynu gaadhsiino heerka qorista iskuulada ilaa 80%. waxaan u mahadnaqaynaa hay'adaha nagala shaqeeya xagga waxbarashada dhammaantood iyo hay'adda UNESCO oo hawshan hadda maanta xuska iyo UNICEF iyo hay'adaha kale ee nagala qayb qaatay xafladan aadka loo soo agaasiyay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.